waxaan kaloo doonayaa inaan u mahadnaqo gudoomiye Cabdirashiid Magaalo gudoomiyaha UK iyo Cabdullaahi gudoomiye ku-xigeenka Cabdullaahi Jamac oo halkan noogu yimi waxaan islahaa burco iyo dhalinyaradeeda iyo midnimadeeda adiga cidigii kaaga horreeyay aad ka wargeysid oo qurba joog u geysid laakiin Cabdullaahi oo aad u qiimo badan ayaa halkan inoo ku yimi isaga warkii iga horreysiyay caawana iyaga halkan inaynu isugu nimaadno sabab sida la sheegay hadiya jeeraale qurba joogu marka aan qurbaha la joogo qofku wada wadaniin baanu nahay wuxuu ka fakarayaa dalkiisu qof walba ka fakaraa si aan moodo inaanay qolqol joog u dareemin baa qofka qurbaha jooga u warwaraayo u dareemaa dalkiisa inuu wax taro inuu hagaajiyo inuu mideeyo inuu isu keeno waxaan doonayaa inaan dhowr kelmadood idhaahdo marka abwaan la yidhaahdo waxaa la odhanayaa dee gabay baa layga sugayaa gabaygu halkanna ku wada duumi maayo aniguna habeenkan caawa gabayga uma hayo qiil waxaanan qiil ugu hayn nin baa la yidhi maalkiisa baal ku jiro ayaa darre mooye oradarre lama yidhaahdo halka kan caawa dadkeennii iyo dalkeennii aynu muddada badan ka soo shaqaynaynay waxa wanaaggiisa caawa waynu ognahay gobolka Laascaanood waxa ka jira waxa weeye waxaan doonayaa inaan ku hadlo magaca qarannimo caawa mid xisbi ku hadli maayo aniga oo dadka oo dhan ka wada dhaxeeya ayaan mucaarid noqday markan mucaarid noqday ayaa wixii aan idhaahdaba la yidhi oo mucaaridkii waxaad moodaa mucaaridku inaanu waddanka waxba ku lahayn inaanu qarannimada waxba ku lahayn waxaan doonayaa dabadjoog iyo gudajoogba inay dhegaystaan hadalkayga oo dhuuxaan caawa dalkii Soomaaliland wuxuu u baahan yahay talo talada waxa looga baahan yahay kulligeen inaynu danta waddanka u jeesano oo iska dayno isqaybinta iyo qabyaaladda oo iska dayno waxa liya wixii qarannimadeena wax yeelaya waxa liya wixii midnimadeena wax yeelaya waxa liya wixii wax isu ahaanteena wax yeelaya waxa liya wixii danteena inaynu wadaagno wax yeelaya waxa la labada ilaahay baa u daawo qaaday labada iyaga daawo qaatay labada wax isku darsaday iyaga daawo qaatay labadii ilaahay meel wada dejiyay ee ehel ka wada dhigay ee wax isugu dareen ilaahay baa bada u daawo qaaday gobolka Laascaanood taariikhiyan wuxuu ahaa degmad ka mid ah magaalada tan gobolka Togdheer gobolka Togdheer degmad ka mid ah ayuu ahaan jiray dadkuna waxa weeye dad wada dhashay oo isku mid ah oo aan sinaba loo kala saari karin dhalinyaro waxaan arkayaa miidiyaha ayaa iminka mushkilad caalamka ku soo biirtay oo dadka kala qaybiya annagu wax badan baan u soo joogno filimada maanta soconaya nooma cusba way arag baan ku nahay waxa aan ka codsanayaa sidaa maanta burco ilaahay xanuunka uga saaray tacab galay tacabkaasoo kale in gelisaan inteena halkaa fadhida qof waliba ehel buu ku leeyahay Laascaanood qof ka marani ma jiro baan filayaa qof waliba qofkiisa wanaagga ha u sheego oo sida wanaagsan hawlaha oo qurba joog meel walba way wada degan yihiin way wada joogaan dadka ka qayb qaadanaya qurba joog baa u badan baa la dhibaatada kicinaya war qurba joogow meel aad joogtaanba
ilaahay ka baqa oo wanaaga ku hadlo oo iskaashada markaan qurbaad joogno xaafad baanu noo dadka Soomaalida joogtaaba waa walaalo kuwa reer Soomaaliland wax ka codsanaya waar walaalooba oo ka wada hadla mushkiladda caruurtiina dhimanaysa iyo dhulkiina dabka ka baxaya ka wada hadla dadkiisu ka alifa abwaan kuwa erayadoo ibaha iyaga furee haddaan arrinkeen ba jirin aqbala ma leeyahay karaabaan bari waxba ma arkaan inuu iyo wuxuu baa lagu arkaa abwaanku marka uu hadlo ee wax sheego maanta dadkii dhageysan jiray ee qiiman jiray ma jiraan waa kiiba la oranaya waxa loogu darayaa waa kii reereebay waxa loogu darayaa waa kii xisbiga wuxuu ku hadlayay lama maqlayo bari hore waxaan idhi abwaan muu kala dhex galo dadkayga ku dhoololayo haddaan dhihi ilaa wax dhaba durbaba waxay dhiganayaan qabiilkan uga dhasho ilaa dhaglis ay socdaan walaalada kala dhiilaan dhammaad malitay rabaan aakhirataanku baa la odhanayaa war meel dhaglis baa oo ma bahdi caynkaas ama soo bahdi caynka abwaanku muxuu qiimo ku yeelanayaa markaa maxaa hadalku qiimo ku yeelanayaa maxaynu wax isugu sheegi karnaa waxaan leeyahay fadhiga ha laga kaco talada wax badan baan jaraadey dhig baan jalaq lay siinay buu wax badan baan ka hadalay halkay maanta marayso laakiin lama dhigaysan maanta taladii urimayse way quruntay taladii kulmiye way quruntay wixii aan ka digaynayna way dhaceen wax garadka reer Soomaaliland ee dal iyo dabadba jooga fariinta aan halkan uga gudbinayaa waxa weeye inay midoobaan oo uqaashu kacdo oo wax garadku kaco oo la midoobo oo war waa la hagranayaa waxba laga qaban kari waa in maanta dhibaatada ay haysteen wax laga qabto nin kasta nin dhukani haduu jiro annama isnaga tirim nin ma jiro qof bini aadan oo la qaban karin qof aan wax loo sheegi karin ma jiro dalkayna kaale dhalinyaradiina asaa mustaqbalkiisa leh meel kasta iyo gobol kasta iyo qurba iyo meel walba inta laga kaco inaan aynaan noqon daawadayaal daawada dantoodii oo burburaysa ayaa laynala gudbo daawadaha ka noqonina dalkiina maanta daawadaha ka noqonina baan leeyahay qurbajooga ha ka noqonin waxa liya wax qabada ee lagu tabcay qurbajoogu waa 80% baan oran karaa dalka iyaga dhistay ha ka noqonina maanta kuwa ku kala qaybsan iyo daawade wali waxa socota in qofkii hadlaba la yiraahdo haduu sida hebel u hadli waayo qarannimadu ka soo jeedaan haduu sida qolada u hadli waayo qarannimadu ka soo jeedaan qaranku waa ummadda oo dhan way waa reer laas caarood baa qaranka ah haddii laas caarood la waayo qaran ma jiro qaran jira ma jiro qof walowba niyadda geli qarannimadu halkaa weeye systemna maaha xusbina maaha ninna maaha berberi wax gool lagu qaado ka weyn hadal